السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين أبوان حرقو waxaan idin wadaa barnaamij gaar ah oo ka turjumaya fisqiyaadka ka jira xeebta Jasiira iyo xeebta Liido. halkaani waa xeebta Jasiira, waxaa si maalinlaha ugu tunta gabdho iyo wiilal ajaanib ah oo iska soo raaca caasimadda magaalada Muqdisho si halkaasi ay ugu tuntaan. jimcihii ayay ahayd muuqaalkaani waxaa halkaas lagu soo bandhigay wax aan isha iyo qofka bini'aadamka ama muslimka uusan qaban karin. waa gabdho Soomaaliyeed oo guryahoodii kaga soo baxay xijaabo iyo indha shareero. waxay soo raaceen wiilasha ajaanibta ah oo aan ka naxaynin sharaftooda iyo cisigooda. waxay u soo raaceen meel cidlaa, xeeb cidlaa, cid joogta aan la garanaynin. isla markiiba muuqaal ayay ka duubeen wiilashii oo kuwa halkaa ku niikinaya hadba mid sarraxa saaraysa. aaway dadnimadii ummadda Soomaaliyeed, aawaysa culimada siyaasadda ka hadasha. waxaan ognahay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho iyo xafladii Sheekh Umar laga joojiyey ee lagu dhigay stadium Goonis midii ka dhacday waa la ogaa iyo banaanbixi ka dhacay. haddaba maxaa looga aamusan yahay sharafka gabdhaha Soomaaliyeed iyo carada Ilaahay oo maalintii 50 jeer ku soo degata xeebaha waaweyn ee ku leenahay caasimadda magaalada Muqdisho sida xeebta Liida iyo xeebta Jasiira? culimadu maxay uga aamuseen? wacyigelintana maxaa loo siyaasadeeyey? waa su'aal daaweyn oo aan rabo inaan weydiiyo dadka cuqalada ah oo caqliga u saaxiibka ah. culimadu ayaa iska daba meeraysata, dadkiina halkaas ayay ku halaagsameen. naxariistii Ilaahay iyo waxyaabihii Ilaahay aan ka heli jirnay oo naxariis iyo gargaar intaba waxaan ku weynay fisqiyaadkaas ka jira xeebta Liida habeenkii 6 saac markii la gaaro iyo maalinta Jimcaha fisqiga ka jira xeebtan Jasiiro oo aad u jeedaan in gabdhihii jirkoodii ay halkaasi ku soo bandhigayaan ayagoo kula tumanaya wiilal ajaaniba si maalinlaha. muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro iga gaarsii cid kastoo caqliga u saaxiibka ama cid kastoo danaynaysa in ay wax ka qabato arrintaani.